dembiyada sii kordhaya waxaa ka mid ah kufsiga, waxaa kaloo ka mid ah dembiyada dhaqan celinta. haddaba haddaan si gaara marka uga hadallo dembiyada kufsiga, xafiiska xilaalinta guud wuxuu leeyahay xafiis la dagaalama kufsiga kana howlgala 4 gobol oo kala ah gobolka Mudug, gobolka Bari, gobolka Nugaal iyo gobolka Karkaar, taas oo ay ka taageerto ama ay ka caawinto hay'adda UN Women. haddaba tirakoobka ay soo gudbiyeen xafiisyadaas kiisaska kufsiga ee dhacay, kiisaska intaan u gelin kiisaska kufsiga dembiyada Puntland ka dhaca waxay kala yihiin kiisas dhaba oo kufsi dhabo dhacaya iyo kiisas kufsi argudasho ah iyo kiisas kufsi been abuur ah oo lagu raadinayo dhaqaale iyo waddan saddexaad intaba si loo helo, taasoo ay faraha kula jiraan hay'ado aan shaqadooda ahayn wayna buunbuuniyaan. haddaba 4 gobol ee xafiiska la dagaalanka kufsiga oo UN Women ay ka taageerto xafiiska xilaalinta guud, kiisaskii ka dhacay kufsiga ay soo gudbiyeen sida tan way macluumaadkooda guud. sanadkan dhammaantii kiisaska sanadka dhacay 4 gobol waa 80 kiis oo kufsi ah. tirada kiisaska kufsiga xukunka ku dhacay oo la xukumay eedeysanayaashoodii waa 35 kiis. tirada aan la keenin maxkamad iyo xafiis xeelaalin laguna dhameeyay qaab heshiiseed waa 15 kiis oo kufsi ah. tirada kiisaska loo waayay cadeymo cad lana dhaariyay eedeysanayaasha waa 18 kiis. la dhaariyay macnaheedu waxa tahay kiisaska cadeymo buuxa loo waayay waayo ma jirin markhaati ku cadeyn kara, lama helin waxyaabo marag muujin oo cadeynaya eedeysanaha dembiga inuu galay. marka si dadku ay u kala qancaan waxay xeelaalinta iyo maxkamaduhu sameeyaan ama maxkamadda xeelaalinta soo jeedisaa in lagu dhaariyo in la dhaariyo, maadaama Soomaalidu ay aaminsan yihiin shariicada islaamka kuna kalsoon yihiin dad muslimiin ay yihiin. tirada kiisaska baarista ku jira waa 5 kiis. tirada kiisaska socda dhageysiga garmaqalkoodana waa 7 kiis oo kufsi ah. gobol ayaan u kala qaadaynaa. gobolka Bari kiisaska kufsiga ka dhacay 2017 xafiiska la dagaalanka kufsiga ee UN Women ay ka support garay xafiiska xilaalinta ay ka support garayso reportkii soo gudbiyeen waa sida tan. 25 kiis oo isugu jira kufsi isku day kufsi ayaa ka dhacay Boosaaso. waxaana kiisaska aan u kala qaadaynaa sida tan. 6 kiis oo kufsi ah waxa lagu xukumay eedeysanayaasha midkiiba 10 sano oo xabsi ah. 2 kiis oo kufsi ah waxa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah. 4 kiis oo isku day kufsi ah waxa lagu xukumay 3 sano eedeysanayaasha. 1 kiis waa uu socdaa baaristiisii. 2 kiis dhageysigoodii ayaa socda. 1 kiisna waa uu wuxuu ku dhamaaday heshiis. 9 kiis oo kufsi ah waxa loo waayay cadeymo waana la dhaariyay eedeysanayaasha. gobolka Karkaar 2017 kiisaska kufsiga ka dhacay waa 22 kiis oo isugu jira kiisas kufsi ah iyo isku day kufsi. waxaana u kala baxaan sida tan. 5 kiis oo kufsi waxa lagu xukumay midkiiba 15 sano xabsi ah. 1 kiis oo kufsi ah waxa lagu xukumay midkiiba 10 sano oo xabsi ah. 1 kiis oo kufsi ah waxa lagu xukumay 2 sano oo xabsi ah. 1 kiis oo isku day kufsi ahna waxa lagu xukumay 3 sano. 1 kiis dhageysiga garmaqalkiisa ayaa socda. 1 kiis baaris ayuu ku jiraa. 2 kiisna cadeymo ayaa loo waayay waana la dhaariyay. 10 kiisna waxay ku dhamaadeen heshiis. waa gobolka Karkaar.
kiisaska kufsiga ka dhacay gobolka Mudug sanadkan 2017 waa 11 kiis oo isugu jira kufsi iyo isku day kufsi. waxayna u kala baxaan sida tan: 3 kiis waxa lagu xukumay midkiiba eedeysanayaasha min 10 sano xabsi ah. 2 kiis waxa lagu xukumay midkiiba 5 sano oo xabsi ah. 1 kiis isku day kufsi ah waxa lagu xukumay 2 sano. 1 kiis wuxuu ku dhamaaday heshiis. 1 kiis waa u socdaa dhageysiga garmaqalkiisa. 2 kiis baaris ayay ku jiraan. 1 kiis waxa loo waayay cadeymo waana la baariyay. kiisaska kufsiga ka dhaca gobolka Nugaal 2017 sanadkan ah waa 22 kiis oo isugu jira kufsi iyo isku day kufsi. waxaana loo kala qaadaa sida tan: 2 kiis oo kufsi ah waxa lagu xukumay min 15 sano xabsi ah. 3 kiis oo kufsi ah waxa lagu xukumay min 10 sano oo xabsi ah. 2 kiis oo kufsi ah waxa lagu xukumay min 5 sano oo xabsi ah. 2 kiis oo isku day kufsi ah waxa lagu xukumay min 2 sano. 3 kiis waxay ku dhamaadeen heshiis 2 dhinac. 3 kiisna waxa socda garmaqalkoodii. 1 kiis baaris ayuu ku jiraa. 6 kiisna cadeymo ayaa loo waayay. kiisaska cadeymaha loo waayo waa kiisaska ay u badan yihiin been abuurka ay u badan yihiin iyo kuwa loo waayay markhaatiyo iyo cadeymo buuxa. haddaba xafiiska xeerlaalinta guud ahaan dambiyadii Puntland ka dhacay sidaanu sare ku soo xusnaa way. xafiiska xeerlaalinta digniin ayuu u dirayaa dhammaan waalidka iyo dhalinyarada ku howlan inay sameeyaan fararka ama faldambiyeedyada kufsiga. Puntland sanadka soo socda haddii alla idmo waxa ka howlgali doona shaybaarkii lagu baar lahaa manida. shaybaarka isaga xafiiska xeerlaalinta wuxuu ka caawin doonaa kiisaska loo waayay cadeymaha. halkaas ayaanu ka heli doonaa cadeymo, waayo eedeysanaha maanadiisii ayaa la qaadayaa. gabadha xubinteeda taranka biyihii laga helay yaa la qaadayaa, kadib labadooda ayaa la geynayaa shaybaar. halkaana shaybaarku wuxuu cadeynayaa labadaas biyo gabadha ta laga helay iyo tan ninka eedeysanaha ama eedeysanayaasha inay isku mid yihiin ama inay kala duwan yihiin. waxyaabo badan oo xafiiska xeerlaalinta ama maxkamaduhu waayeen cadeyn yaanu heli doonaa cadeymahoodii. waxa kale howlgalay ama dhaqan galay xeerka la dagaalanka kufsiga. waxa kale ciidanka amnigu ay dardar geliyeen in la soo qabto kiis kasta kufsi ah. haddaba waalidka dhalay dhalinyarada sameeyo faldambiyada noocaas ah, haddii faldambiyada noocaas lagu soo helo iysan ka daba imaan caruurtooda. haddii ka daba yimaadaanna ayaga ayaa la dambi ah sida uu dhigayo xeerka la dagaalanka kufsiga. xafiiska xeerlaalinta guud wuxuu mahad gaara u soo jeedinayaa dhammaan ciidanka Puntland oo ku howlan sugidda amniga. wuxuu kaloo mahad gaara u celinayaa hay'adda UN Women oo ka taageertay 4 gobol aan hore u soo sheegnay sidii uu xafiiska xeerlaalinta uga furan lahaa xafiis la dagaalama kufsiga. sababtoo ah xafiiska xeerlaalintu marka uu daneynayo ama uu sameeyay xafiiska la dagaalanka dambiyada kufsiga waxay tahay kufsiga wuxuu ka mid yahay dambiyada sii kordhaya ayuu ka mid yahay.